بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى وحين ويدسينا إنه عملك صالحا إنه أقبله خيرك وناقلا إنه اللي بالله وإنه وافتيه إن شاء الله تعالى. مجلس كان سكوبا وحين وحير كورن دونا qur-aanka kariimka ah iyo niyooyinka layna faray inaynu u akhrisanno wax ka mid ah. waxa caana oo qofka qalbigiisa iyo maskaxdiisa muslimka ku jira inuu qur-aanka kariimka u akhriyo isagoo ajar ka raadinaya akhrintiisa. fadli fara badanna uu ku soo arooray sida nebigu sallallahu alayhi wasallam uu sheegayo qur-aankana ku timi oo xaraf kasta oo ka mid ah qur-aanka kariimka ah waxa rabbi subxaanahu wa tacaala uu tilmaamayaa inuu ku bixinayo oo lagu helayo 10 xasano. marka qofku marka uu qur-aanka akhrinayo niyada koowaad ee mutabaadarka ahi ee badanka dadku ay u akhriyaan waa inay ajar ka helaan akhrintiisa, waa inay marka waxa weeye khayr ka helaan iyo ajar wax miisaankooda u cusleeya qiyaamada. laa shakka niyadaasi waa niyo aad u weyn oo cadiima weeye, laakiin waxaa jira niyooyin kale oo fara badan oo layna faray inaynu qur-aanka u akhrisanno. niyooyinka waxaa ka mid ah niyada ah qofku inuu qur-aanka u akhrisado isagoo hidaayo iyo hanuun ka raadinaya, oo hidaayada saa taqaaniinba laba u qaybsantaa. hidaayo la yidhaahdo hidaayatu dalaalati walirshaad oo ah qofka in jidka toosan loo tilmaamo oo lagu wacdiyo. nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam diinta waa kayna soo gaadhsiiyey ee rabbi subxaanahu wa tacaala jidka uu raalli nagaga noqonaya waa kaynoo caddeeyey. hidaayada kale ee hanuunka labaadna waxaa la yidhaahdaa hidaayaة الtawfiiq, in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku waafajiyo oo kugu hanuuniyo inaad wixii sabaha ahaa ee dantaadu ku jirtay aakhiro inaad markaa waxa weye qabsato. marka hidaayada raadinteeda ayaa ka mida niyooyinka qur-aanka loo akhrisado. marka su-aashu waxay tahay imise qof oo inaga mida ayaa qur-aanka u akhrista siduu hanuunka ilaahay subxaanahu wa tacaala u helo oo ilaahay hanuunka u waafajiyo. niyada noocaasi waa niyo u baahan in la nooleeyo, qofku qur-aanka u akhristo isagoo oo raadinaya in rabbi subxaanahu wa tacaala u hanuuniyo. ilahay markuu ka hadlayay bishan barakaysanan ku jirno iyo qur'aanka xidhiidhka ka dhaxeeya ayaa waxaa lagu ladhay hanuunka dadku inuu ku jiro bishan barakaysan iyo qur'aanka oo laysku ladhay. shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaas. marka bisha barakaysan ramadaan waa bishii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey qur'aanka kariimka ah xaal uu yahay hanuun dadka xaalad uu u yahay. marka hanuunka uu dadka u yahay dadka laga hadlayaa waa innaga. hanuunka inaynu raadinno see ku helaynaa? waxaynu ku helaynaa inaynu qur'aanka kariimka akhrisanno innagoo isaga dhexdiisa hanuun ka raadinayna. marka mushkiladaha nololada ku haysta, kuwa nafeeda ku haysta, culaysyada kala duwana ku haysta, inaad farajkoodii ka raadiso iyo hanuunkoodii qur'aanka kariimka dhexdiisa inaad ka raadiso. cudurrada iyo macaasida iyo waxyaalaha la midka ah hanuunkoodii inaad ka dhex raadiso qur'aanka kariimka ah iyo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey ayaa niyadani ay tahay. marka rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin. dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaya hanuun xaalu u yahay baa ilaahay kitaabka idiin soo rogo idiin soo dejiyey, shakina isagaan ku jirin. marka qofku taqwada iyo alla ka cabsigu la imanayo waxaa ka mida inuu hanuun ka raadiyo qur'aanka kariimka ah. qur'aankuna wuxuu inagu hanuuninayaa waddooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala ee toosan ee ku dhammaanaya ilaahay raalli ahaanshihiisa oo jannadu marka waxa way ka mid tahay. yahdii bihi illaahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaam. marka qur'aanku ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam, wuxuu kugu hanuuninayaa waddada toosnida badan ee jannada gaadhaysa. shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay qofka qur'aanka dhugtaa isagoo hanuun ka raadinaya
waxa uu cadaanaya dariiqa marka waxa weeye hanuunku uu ka jiro dariiqa hanuunku uu ka jiro ayaa marka waxa uu cadaanaya marka niyada waxa la yiraahdaa niyatul hidaayah ayaa la yiraahdaa inuu qofku quraanka u akhristo isagoo hidaayah ka dalbaya ama ka raadinaya waxa kamida waxyaalaha quraanka loo akhristo niyooyinka quraanka loo akhristo inuu qofku caafimaad ka raadiyo oo qofku xanuunka haya ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa soo rogay dawadana ilaahay gacantiisa ku jirtaa waxyaalaha iyo wadooyinka hanuunka lagu raadinayo waxa kamida akhrisashada quraanka iyo marka waxa in quraan la isa saaro ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wanunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah waxaanu soo rogaynaa quraanka kariimka ah xaalo uu ka mid yahay wax dadka daweynaya oo naxariis u ah marka naxariis iyo daawo saad u hesho waa inaad quraanka u akhrisato xanuunkii cudurka la nooshay ku haya inaad uga hesho caafimaad inaad caafimaad uga hesho waa niyatu shifaa wal istishfaa balayda quraanka inaad u akhrisato adigoo ka raadinaya daawo adigoo ka raadinaya wuxuu marka waxa weeye quraanku daawo ka yahay cudurrada qalbiga ku dhaca kuwa badanka ku dhaca kuwa arwaaxda ku dhaca kuwa qulubta ku dhaca qalbi angiga oo kale waa cudur kamida min amraad alqulub عدم الخشيه وعدم الخوف إلهي laga yaabi waayo ilaahay laga baqi waayo waa cudur kamida cudurrada amraadda ku dhaca qalbiga ku dhaca marka cudurka waxaad iskaga daweynaysaa adigoo marka waxa quraanka ka raadinaya shifaa iyo caafimaad ka raadinaya waxaanad ogaataa quraanku waa hub weeye hubkuna wuxuu awood yeeshaa marka cidda ganaysa ay awood leedahay يعني marka qalbigaagu saafi yahay ee macaasidaad ka dheeraateed ku toosan tahay ee quraanka in aad shifo ka raadiso iyo caafimaad markaas quraanka wax ku taraya aad ku toosan tahay quraanka waxay yiraahdaan markaad qaanso ganayso qaansadu waxay gaadhaysaa hadba inta dib u celisay qaansada haddii waran fiican lagu dhiibana oo dhabi ah de waranka waxa uu gaadhayaa meesha cidda tuuraysa ay gaadhayso waranku si kasta u fiican yahay oo u af badan yahay waxba gooyin maayo waxana marka waxa way tari maayo haddii cidda ganaysa aanay awood ku garin saasoo kale ka dhigan yahay marka quraanka cidda akhrinaysa haddii aanay ahayn cid ku toosan oo jidkiisii haysa dee shifaa ka heli maysid marka waxa weeye marka waa inaad ku toosnaato quraanka dhaqankiisii isla markaana niyada aad u akhriyaysa ay noqoto niyatul istishfaa faatixada marka waxa weeye aad xumada u akhrisanaysaa wax sahlan ma adigoo xumadaysan faatixada aad ilaahay subxaanahu wa ta'aala dartii u akhrisanaysa ee ah ilaahu igu dawee igu shifee wax sahlan marka waxay ma aha marka niyooyinka quraanka loo akhrisana waxa kamid ah in ilaahay subxaanahu wa ta'aala kugu daweeyo oo kugu shifeeyo waxa kamid ah niyooyinka quraanka loo akhristo in cilmi laga dhex raadiyo taasina waa waadix weeye waayo cilmigu wuxuu ku dhammaadaa quraanka kariimka ah ku dhammaadaa نبينا عليه الصلاة والسلام وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه حين يكون خير بدن روح القرآن كبرت تذكر نصيب براء أجر فربنا ولا جهلا إن الراديو معناها قرآن كعلم لقد راديو قرآنكم محوين فريا محوين قريبيا محوين قتر ترسينيا محوين قدقيا وحصلا نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ما jiraan duul ku kulmaya guriga ilaahay kamida oo kitaabka ilaahay akhrisanaya oo yatadaarasuunahu baynahum kala dhiganaya ay fasirayaan way raadinayaan macnihiisa ay baarayaan haddii la helo duul noocaasa illa nazalat calayhim as-sakiina waxa ku soo degaysa sakiiniya xasilooni waxa ku soo degaysa oo ghashiyatuhum ar-rahma waxa daboolaysa naxariis ilaahay xaqiisa ka ahaatay وحفتهم الملائكة وحريرينيسا أو الله صوف فريسانيسا ملائك با الله صوف فريسانيسا وذكرهم الله في من عنده إلهين أكتسوا كحصيا دولك قريها إلهي كميدا انت يمادين هذا الكي إلهي كربرانيا مدارسينيا دقانيا نيدا النوع عاصل القرآن أو أخرسته أو الديارسه أو التفسير كيسي براتو يدنا وانية وارد أو أباهن إن اسكتر ترسينا ولا ليا
نية أفراد كم إذا نيوين كقرآن كله آخرستو يعني قرآن كقصد كذا آخر سنة إنساء إنه نقضوا العمل إن تكون رقم إن تكون رقمته العمل إن دقن جلسوا أو بل مثلا بأترى هذا ما دام رمضان لقوا شرو فرصة في عنا يتهيأ وقفك سكوب بدالي كرو قرآن كان آخر سنة يا سعر جلسه ودحبه عادوين عبادوين aanan hore u qaban jirin oo hadeer aan bilaabo oo la qabatimo oo marka waxa sida aan u joogteeyo marka waxaad u akhriyaysaa niyatul amal inaad ku amal fasho quraanki daraadii baad u akhriyaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay alladina aataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi kuwa kitaabka loo soo dejiyay waxay akhrinayaan tilaawada iyo akhriska uu xaq u leeyahay Abdullah ibn Mas'ud wuxuu tilmaamayaa tilaawada uu xaq u leeyahay cidda akhriyaysa وعدة كعمل فليسوي عدة حدود سيالنيسا حدود سأوفنيسا كعمل فليسويان عدة مركا تلاودي آخرسكي حق أولها قرآن كأخريا نبي عليه الصلاة والسلام حكورنا قيامة وحالكين يا روح قيامة وحالكين يا قرآنك يا أهل كيسي قرآنك دتك آخرين شري كعمل فلي شري الذين كانوا يعملون به في الدنيا أهل القرآن وايو أهل القرآن وعدة كعمل فريسا قرآن كريم كأه حروف تيسا حدود تيسا بأوفنيس توسنيس أولئك أهل الله أولئك أهل القرآن نبي عليه يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا قيامته حركين يا قرآن كي يدك أهل كواها كعمل فريسري waxaa hogaaminaya quraanka suuratul baqara wa ali imran tuhajjani an sahibihima waxay u doodayaan cidii ku amal fali jirtay ee akhrisan jirtay ee xuruuftiisa iyo xuduudiisa oo oofin jirtay ay markaa u doodayaan yani wana niyada noocaas oo akhristo Abdullah Saud wuxuu leeyahay waxaanu ahayn hadii aanu 10 aayadood oo quraanka ah baranno قارن دافين أو ويدارن طبعاً كآيات إلا أنو كعمل فلنو إلا أنو كعمل فلنو نبينا عليه الصلاة والسلام حديث كبير مثل الأشعري وكله والقرآن حجة لك أو عليك القرآن كنا حكون قنيا حجة أما حكون قنيا حجة يكون قنيا إلهي وحيد ويدي سرنا كوي كعمل فلا حدود ديسا حروف ديسا بتوسيع إلهي نغيره قضبك الشناد أم النية الشناد القرآن كله أخريه وطلب الرفعة من الله إن الإلهي كطلبته كدون تعطيك القرآن كأخرينية إن الإلهي كريسيه إن الإلهي منزل السرع شنادك وجيه منزل السرع آخرك وجيه ويوحى منزلين كسرع لجوه ليا وأمرك وحويه قرآن كريم كأهويان قرآن كريم كأهويان قرآن كلفت الكيسة متكر رياء وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم كقرآنكم متكر ريبو هذا أو عز يشرف له رفعنا وحا لو هلا وقرآن كتوسنتيسا يكو عمل فلك سويان وحوليه عمر الخطاب نبأ يميه مركزول أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ورفعته لصاحبه شاملة رفعة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وحوليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ننكا أوي من صحابه رسولك وحول عليه الصلاة والسلام نبي وحو تلماما يا إلهي قرآن كان وحو كوكو الرئيسين يا دول كانوا والقد لينيا دول كحروف تسي حدود تسي أوفية إلهي منزلئي رفع صينيا كوكو عمل فلوايانا إلهي سبحانه وتعالى وكد لينيا وحكى النبي عليه الصلاة والسلام سيدة الترمذي غير كسورنا ينقصوا عروري إن النبي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن قفك قرآن كنت وصل كسمتنا الدنيا ذا آخر وحل إلى هذا اقرأ وارتقي سلان كان فول وقرآنك أخري ورتل كما كنت ترتل في الدنيا سيدة قرآنك أدو أخرين تأدوية لحية ذا أو أخري فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها
mansiladaad iyo booskaad jannada ku leedahay ee aad gaadhaysaa waa aayadda ugu dambaysa ee aad akhriyaysa halka gaadho halka qur'aanka aad xifdisan tahay kula gaadho ayaa mansiladaada kula gaadhaysaa maanta haddaynu nidhaahno baratan baa la gelayaa iyo tartan oo halkaasaynu marka waxa way saf ka galaynaa qof waliba markuu aayad akhriyo ayuu tallaabo hore u qaadayaa maxaa markiiba soo baxaya waxa markiiba soo baxaya sida loo kala quraan badan yahay baa loo kala horeynaya oo qof waliba aayadda iyo suuradda uu hayo ayuu tallaabsanaya marka 114 suuradood intaad ka xifdisan tahay baad ka tallaabsanaysaa marka mid baa halkaa ku go'aya ku istaagaya mid baa meelahan aan dhaafaynin mid baa halkan soo gaadhaya ragga qaar baa durdurinaya oo meel darajo sare gaadhaya marka waa inay isu miisaanto weeye markay quraanka akhrisanayso oo aad ilaahay subhanahu wa ta'ala rifco kaga doonto nabiga wuxuu leeyahay alayhi salatu wassalaam ala niyatikum turzaquun niyooyinkiina la idinku arsaaqaya marka quraanka markaad akhriyayso kaliya ha u akhrin inaad ajar ka hesho waxaad u akhridaa niyooyinkan aynu sheegayno wax kamida waxaan ku soo gabagabeynaa walaalayaal niyooyinka waxa kamida in qofku uu barakada ka raadiyo quraanka kariimka akhriskiisa iyo barashadiisa barakadu wax sahlan maaha barakadu wax sahlan maaha haddii qofka noloshiisa barakada laga qaado waxay noqonayaa qofkaasi qof daalan oo jeelan wax thamara ah iyo wax midho ah oo buuranna aan haynin thamaraduna barakaduna waa waxa marka shayga bulaaliya ee qurux badnaysiya ee qofka raandhiis u yeela ayaa barakada la yiraahdaa waxaan ina amray inaynu barakada iyada ah raadino in ilaahay subhanahu wa ta'ala maalka barakadiisa la raadiyo ubadka barakadooda la raadiyo awlaadda barakadooda la raadiyo umriga iyo nolosha laftarkeeda laga yaabo qofka 10 sano shaqo haya laga yaabo waxa ka baraka badan qof 2 sano shaqada haya ayaa kaga wanaagsan oo kaga horeeya oo kaga midho badan waxa isku dhaafin barakada maaha marka waqtiga ma aha marka barakadu shay ciyaara ma aha qofku waa inuu wixii barakada ka qaadayna iska ilaaliyo wixii barakada u jilaabayana uu ku dadaalo waxyaalaha barakada keena waxa kamid ah in qofku quraanka akhriyo isagoo baraka ka dhex raadinaya ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay wa hadha kitabun anzalnahu mubarak kani waa kitaab aan idin soo dejinay oo aan soo rognay oo mubaarak ah barakaysan waxa kale oo la isku xidhay ilaahay xuskiisa quraanka oo la dhugto iyo markaa barakada la isku xidhay kitaabun anzalnahu ilayka mubarak kitaabun quraan weeye anzalnahu an soo rognay ilayka adiga nabi maxamed xaggaaga aan soo rognay mubaarakun xaala u barakaysan yahay maxaa loo soo rogay liyadabbaru aayaatihi si markaa waxa weeye ay markaa waxa weeye ugu u dhugtaan oo u dhuuxaan aayaadkiisa u dhuuxaan waliyatadakkara ulul albaab dadka qalbiyada u saaxiibka ah iyo quluubtuna ay markaa waxa weeye ugu wana qaataan nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wassalaam akhriya suuratul baqara fa inna akhdaha baraka suuratul baqara akhriya wa yaqadashadeedu baraka weeyaan fa inna akhdaha baraka wa tarkuha hasra katagideeduna waa marka waxa weeye nadaamu iyo qoomam weeye wala tastatiicuha albatala saxarada iyo sixroolayaashuna suurada awoodayaan maaha nabigu suuratul baqara oo kaliya ayaa uu saddexda fadli u tilmaamay ku dadaala oo akhrista oo barta suuratul baqara way qaadashadeedu waa barako akhduha baraka wa tarkuha hasra in laga tagana wa nadaamu wala tastatiicuha albatala sixroolayaasha iyo kuwa falalowga ahina ma awoodaan baa nabigu leeyahay alayhi salaatu wassalaam ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu quraanka inoo fudaydiyo akhriskiisa iyo barashadiisa iyo xifdigiisaba rabbina subhanahu wa ta'ala naga yeelo ahlul qur'aan kuwa u heelka ah quraanka kariimka ah kuwa ilaahay darajo sare ku siiyo dambigoodana ku dhaafo ajarkoodana ugu lebilaabo hada wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk